قدومية اللي بأنا هذا شرفت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u malaynayaa waa xildhibaano badan baa ayaa ka dhiibtay ra'yigooda cutubkan anigu si toos ah u galayaa aragtida cutubkan iyo xorriyadka uu ka hadlayo qodobka 11aad farqadiisa labaad ee ka hadlaya sinaanta ereyga waxaa laga tiray xukuumadda laga tiray marka mas'uuliyadda oo laga hadlayo maxaa la yiraahdaa inay ilaalinayso iyadu maxaa la yiraahdaa xorriyadka iyo inay ilaalinayso xukuumadda laga bedelay marka waxaa laga dhigay shacabaa laga dhigay marka meesha shacabka laga dhigo caamka laga yeelay waxaan qabaa inaan mas'uuliyadda laga qaadin dawladda laga qaadin at least laga dhigo sidii uu xildhibaan ka soo jeedinaya halkan ra'iisul wasaarihii hore ra'iisul wasaare ku-xigeenkii halkan uu ka soo jeediyay Mahdi oo in shacabka iyo xukuumadda laga dhigo oo aan mas'uuliyadda laga rafcin maxaa la yiraahdaa xukuumadda waa qodobka 11aad farqada labaad ee xukuumadda laga saaray in xukuumadda lagu celsho iyo shacabkana la yiraahdo taasna soo jeedinaya qodobka 11aad farqadiisa afaraad tii xildhibaanadu ay ka hadlayeen weeye oo ka hadlaysay maqaamka iyo maamuuska uu leeyahay awgeed qofka xildhibaan maxaa la yiraahdaa xasaanada leh anigu waan qabaa markasta inay jirto qofka xasaanada leh hadduu dambi galo xasaanadu ma ilaaliso dambiga ama xildhibaan ha ahaado ama qof kale ha ahaado xasaanadu dunuubta qofka hadduu ficil la yaqaano dambi la yaqaano uu galo kamay rafcinayso in lagu maxkamadeeyo oo cadaaladda lagu horgeeyo laakiin in sidan uu hadda u qoran yahay wax laga bedelo oo laga dhigo faldambiyeed qof lagu qabtay inuu noqdo oo gacanta isagoo dambigii ku jira lagu qabtay inuu noqdo aan sidan uu hadda u furan yahay inaan loo furinaan ayaa soo jeedinaya qodobka 14aad oo hadda noqdo hore u ahaa 15 qodobka 14aad faqradiisa labaad meesha ugu dambaysa oo marka laga hadlayay maxaa la yiraahdaa dadka waxa weeyaan qodobka 15aad raalli ahaada qodobka 15aad farqadiisa labaad oo hadda isu bedelay 14 oo iyuu noqday meesha ugu dambaysa oo lagu ekeeyay la yiri cunfiga iyo marka laga hadlayo haweenka iyo caruurta in la yiraahdo laana caruurta laftirkooda way nugul yihiin marka meesha inaan caruurta iyo haweenka iyo caruurta in la yiraahdaan aan soo jeedinaya qodobka 15aad oo waxaan u malaynaa hore wuxuu ahaa 16 hadda isbedelkan la sameeyay maadaama qodobo la xadfay ayuu wuxuu noqday 15 faqradiisa koobaad kelimada marka laga hadlayo ururada iyo waxaas shaqaalaha iyo xisbiyada siyaasadda hal urura la sheegay meeshan oo waxaa la yiri ururka shaqaalaha ama xisbi siyaasadeed ururo shaqaale ama xisbi siyaasadeed la yiri marka waxaan qabaa meeshaas in xirfad lagu bedelo oo xirfadlayaal laga dhigo laana ururadu shaqaale kaliya ma aha ururadu way badan yihiin wayna kala xirfadahooduna way kala bedelan yihiin marka in xirfad lagu saleeyo ee aan magaca shaqaalaha bis aan lagu koobinaan aan soo jeedinaya iyo xisbiyada siyaasadeed ururada xirfadlayaasha midlan iyo ama xisbiyada siyaasadeed la yiraahdo qodobka 17aad waa la tiray faqradiisa koobaad iyo labaadba waa la tiray waana qodobka ka hadlaya qof kasta wuxuu xor u yahay in uu ku dhaqmo diintiisa aniga qodobkaan rabaa inaan runtii si fiican isu kortaago horta waa inaynaan marka aan ka hadlayno islaamkeena iyo diinteena waa inaynaan go'aankeena ku saleysnaanin iyo go'aamadan qaadanayno dhan anigu waxay ila tahay inaanu ku saleysnaanin nusuusta sharciga iyo diinta islaamka iyo waxay ka qabto
inuu ku salaysnaadaa wanaagsan ee uun caadifadeenna iyo uusan saameyn ku yeelan islaamka jumla min almabaadi oo meeshaan qeexaya oo sugaysa xorriyat alcibaada oo qofka aan maxaa la yidhaahdaa muslimka ahayni inuu cibaado inuu ku caabudi karo waxa uu aaminsan yahay diin ahaan uu rumaysan yahay dal aan dalkeenna Soomaaliya oo kale inuu hadduu joogo inuu xaq u leeyahay inuu cibaadadiisa samaysan karo ayaa jira marka marar badan dee shacabkeenna maadaama ay caadifadiisa iyo xagga shareecada iyo diinta iyo rabitaanka ay u hayaan ay aad u tiro badan tahay dad baa in aan si toos looga hadlin oo ishuuga muhiimka ah saameynta leh inaan si cad loo sharxin yaad moodaa inay culays ku samaynayso marka cabsi dadkii laga cabsanayo ayaa marar badan waxaa indhaha laga laabtaa wax ahayd sax in la sheego ani waxaan rabaa halkaan inaan sheego dhowr qodob ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa markuu uu ka hadlayay waa mar walba way jireen dunida muslimka ama dalka muslimka ama xukunka dowladda islaamka hoostiisa waxaa jiray dad aan muslimiin ahayn oo ku dhex nool oo mar walba cibaadadoodana xaq u lahaa islaamkana dee annagu diinta marka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaydar yacni nabiga sallallahu alayhi wasallam waajibaadkii lala soo diray oo dadka muslimiintaana ay wakiil uga yihiin waxa weeyaan waa gaarsiin diinta laakiin qahri iyo ku qasbid ma jiro laa ikraha fi diin qad tabayyana rushdu min alghayb ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamaha lagu kala saaraa oo lagu xisaabiyaa qofkii diinta khalad ka gala iyo qofka aan khaladka aan gelin in alladina aamanu walladina haadu wasaabiina wannasara walmajuus in allaha yafsilu baynahum yawma alqiyamati in allaha ala kulli shayin shahiid aayadda quraanka ahi ilaahay wuxuu uga hadlayaa subxaanahu wa tacaala qofka muslimka ah iimaanka leh ee ilaahay rumeeyey iyo midka saabi ah ama nasaarada ah ama majuusiga ah ee diimo kale iyo wax kala haysta iyo kuwa muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa kala faslinaya isagaa midna qiyaamaha maalinta la isxisaabinayo geynaya ciqaab marinaya midna jannada ku abaal marinaya iyo wixii wanaagsanaayo samaystay laakiin adduunka markay joogaan dadka muslimiinta waxaa ku dhex nool mar walba dad aan diinta islaamka aaminsanayn baa la noolaa culimmaduna waxay yidhaahdaan dee haddiiba laa ikraha fi diini qad tabayyana rushd ilaahay markuu dhahayo yacni haddii qofka lagu qasbo inuu islaam noqdo oo diinta islaamka lagu fardiyo lagu qasbo waxaa dhacaysa nifaaq inuu yimaado oo qof aan diinta aaminsanayn oo muujiyo inuu diinta aaminsan yahay iyada laftirkeedaana khatar kaleeta ah oo ka daran marka waa inuu qofkii aan diin aaminsanayn oo aan muslim ahayn la ogyahay inuusan muslim ahayn taasaa waxay ka fiican tahay inuu munaafiq kugu dhex nool inuu adeeg ayay ka fiican tahay marka walow shaaa rabbuka lajacala naas ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin yacni mar walba dadka iyo diinta iyo muslimiinta iyo maxaa la yidhahdaa ummada ku dhex noolaa jiray waxaad xasuustaan qisad cumar bin khataab radiallahu tacaala canhu markii uu kaniisat alqiyaama uu salaadii ugu soo gashay isagoo qadiiskii ama batriark ninkii ahaa ee xukumay isagoo la jooga ee uu damcay inuu tukado oo uu weydiistay meel lagu tukan karo ayaa la yidhi halkan ku tuko marka wuxuu yidhi waxaan ka cabsanayaa inaan haddaan halkan aan kaniisadda ku dhex tukado in maxaa la yidhahdaa muslimiintu ay yidhaahdaan meeshii cumar ku tukaday waaye marka bannaankaan ku tukanayaa marka isagoo ilaalinaya maxaa la yidhahdaa inaan laga qaadan kaniisadda laftirkeeda oo u xifdinaya marka muslimiintu daa'iman dad la noolaa jira oo aan diinta islaamka aaminsanayn inaan ka cararno marka ma aha waddankan aan joogno waa waddan aan rabno dee ummadaha ilaahay oo dhan inuu mid shidaal soo saaraya iyo mid maxaa la yidhaahdaa khayraad kale nagala shaqaynaya iyo mid gaala iyo jinni oo dhan inuu halkan yimaadaan rabnaa waddankani waa waddan dadku aan rabno inay yimaadaan waddamada carabta waa taqaanaan 900,000 waddan dadkiisu yahay ayaa 5 milyan ku nooshahay munaafasaa kaala dhaxaysa tartanaa kaala dhaxaya ummadahaasoo dhan aad rabtaa inay yimaadaan inaad marka dastuurkaaga aad ka tirto qodob dhahaya dadka diinta uu aaminsan yahay ayuu ku dhaqmi karaa qof oo aan shareecada islaamka kugu fardinaynin waxaan u malaynayaa inaysan sax ahayn marka waa in loo daayaa qodobka faqrada waa in la soo celiyaa shareeco islaam meesha waxaa ku qoran culimada marka lala tashtay
culimada lala tashtay nusuus sharciya iyo diin iyo hana tusiyeen hana bareen meesha oo maaragtay xurriyat alcibaada oo dadka muslimiinta ay taariikhda weligood lagu diiday hana tusiyeen annagu dee caamo dadku ma wada ahan dadka in badani waa la kala waa culimada lala tashanaya laftirkeeda waxaa la rabaa takhasus in la ilaaliyaa la rabaa waa inay shareecadii yaqaanaan waa inay fiqigii iyo garanayaan iyo maxaa la yidhaahdaa dastuurka laftirkiisa calaaqo waa inay la leeyihiin laakiin dee qof walba culimo ahi kama tala bixin karo dastuurka kama tala bixin karo marka aniga waxaan qabaa in maxaa la yidhaahdaa arrintaas iyada qodobkaas aad u muhiim u yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii ayaa waxay aad ugu celceliyeen markii wataniyadii ay ka soo baxeen oo islaamka soo galeen ayay aad waxay ugu celceliyeen inay isdifaacaan oo ay maaragtay gaaladii iska difaacaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahayay mar walba jooga oo salaada hal ooga ayuu dhahayay mar walba uu ka celinayay ilaa markii dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey udin liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله وحن فيري إسلامك أسرع وحو إلى لنا يا إيمانين كلية حتى إسلامك آيات دان مركا لقاها الله الله إضمد الصحابة أما الله أقل هذا إني إزدفاعان الله مفسحا كلية حتى إني إلى لنا مساجدي laakiin waxaa laga hormariyay halkaan oo ku qoran oo meelahan la sheegayo dhan waa meelo ay nasaara iyo yuhuud wax ku caabudayeen weeye waxaana loo idmay islaamkii iyo marka daa'iman way jirtay dadka muslimiinta dad ku dhex nool oo meelay wax ku caabudaan leh oo iyagu aaminsan islaamka diinaan hayn aaminsan waana la ilaalin jiray marka qiyaamahana ilaahay subxaanahu wa tacaala kala saaraya dadkana dacwada iyo khayrka in la gaarsiiyey u baahan tahay marka waxaan soo jeedinayaa qodobka reason ma jiro sabab ma jiro loo tiro waliba kan kale oo ku xigaa kabaya oo sheegaya inaan diinta islaamka diinaan ahayn aan la faafin karin marka kan horena waa in la dhaafaa midka dambe oo diinta islaamka diinaan inaan dalka lagu faafin karinna waa in la daayaa sida qodobka 17aad labadiisa faqro oo ka kooban yahay labadaba waa in la soo celiyaa aan aaminsanahay mana aha waxaan shariicada islaamka ku khilaafayno ma aha waxaan diinta dambe uga galayno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا وما سنتي